bulshada ku dhaqan deegaanka Darfacle ee gobolka Hawd ayaa maanta deeq xoolo nool ugu deeqay dhismaha jidka isku xidhan magaalooyinka Balugubadle iyo Hargeysa taasi oo dhismaheeda gacanta lagu hayo kala gudoonka deeqdan ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degme gobolka Hawd iyo xubno kamid ah gudida jidka isku xidhan magaalooyinka Hargeysa iyo Balugubadle waxaana ugu horeen halkaasi ka hadlay xubno kamid ah odayaasha deegaanka Darfacle ee gobolka Hawd haddaanu nahay tuulada Darfacle ee gobolka Hawd waxaanu wadada u ururnay ari marka hore tiradiisu konton ahayd marka qarash ahaan 5 neef baa ka go'ay 45 neef baan ku wareejinay 45 ka wadadaan ku wareejinay gudidii wadada gudoomiyaha gobolka badha saabka maayirka odayaasha kale la socda laga bilaabay marka arigaasi waanu idinku wareejinay waxaan arigii wadadan ururinay waxaan u ururnay gobolka Hawd iyo wadada socota horena waan ugu daray iminkan waan ku daray waxa iyaguna halkaasi hadallo mahadnaq iyo dhiirigelin bay iskugu jira ka jeediyay maayirka degmada Balugubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo Sheekh Mubarak Muuse Faarax oo kamid ah gudida wadada Balugubadle waxaan leeyahay dhammaan tuulooyinka gobolka Hawd hoos yimaada tuulo kasta arigii lagu qoray waa inay u diyaar garowdo saad reer Darfacle soo riyeen reer Darfacle maanta waxa lagu wareejiyeen 45 neef ariya oo ay ugu talgaleen wadada qof kasta waxa la doonayaa kii aan ari hayn foostada amro inuu bixiyo foostada amro $40 qof kasta waxa ku talgalay ee gobolka Hawd dhashay inuu hal foostada amro bixiyo marka way dhamaanaysaa marka aad bay ugu mahadsan yihiin reer Darfacle inay maanta ugu wareejiyaan xoolo dhan 45 neef oo runtii wadada isla markiiba hawsheedii galay iyagoo arkaya annaguna aanu ku wareejinay cidii wadada waday sidiiba loogu wareejiyay marka aad bay ugu mahadsan yihiin isxilqaanka soo ururinta gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Hawd Axmed Ciga Maxamed waxa farxadiya wadadaas oo aan la socday oo media aan ka daawan jiray oo si wanaagsan u socotay maanta inaan ay noqoto tuuladani tii ugu horeysay xoolo aan goobjoog uga noqdaan ku maartay lagu wareejiyo arrinkaasna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay mashruuca ugu weynaan anigu halkan ugu yimi ee socda ee aan doonayna wax walba juhdi kasta aan ku biiriyo wax weeyaan wadadu haddii ay hagaagto sida Ilaahay inoo qadaray aan Ilaahay ka baryayno ay noo dhameeyo waxaan ogahay wax kasta ilaa Itoobiya meel walba inay isugu kan xirmayaan waxaan iyagana bogaadinayaa gudida wadada aad iyo aad u dhabar adeegay inta soo waday aaminiina amaan mudan inay yihiin ayaan qiraya waxaan kale aan iyagana mahad u celinayaa maayirka magaalada iyo golihiisa qaybta ay ka qaateen haday tahay booyado haday tahay gaadiid iyo sida ay ugu helayeen inay himiladoodaas ka dhabowdo inta gobolka joogo wax maaratay aan bala qaadaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay fududeeyay inay meelaha mudan haday hay'ad timaadiyo hadii ay qorshe kala dawladda yimaado heer gobolba wax loo qorsheeyay yimaadaan inaan xasuusnaan doono taariikhdeedana waa kamid mar haday tahay meeshii ugu horeeyay wax lagaga wareejiyo aad iyo aad u mahadsantiin Maxamed Jiciir Axmed TV qaranka Soomaaliland magaalada Balugubadle